wasiirka biyaha ee Somaliland iyo wafdigu hogaaminayay ayaa waxa ay booqdeen deegaano ka tirsan gobolka Sool oo ay ku nool yihiin qaar ka mid ah dadkii xoolahoodu ay ku leedeen abaaraha ka jira deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdikariin Dhool. wasiirka khayraadka biyaha Somaliland Xuseen Cabdi Boos ayaa gaaray deegaanka Karbaldaaley ee gobolka Sool waxaana wafdiga wasiirka ku helinayay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir iyo basuulka ugu sareeyay hay'adda adre gobolka Sool Faarax Aadan iyo suduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Sool. wasiirka ayaa deegaanka Karbaldaaley waxa ugu deeqay biyo ay ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka danyarta ee deegaankaasi ku sugan oo kamid ah meelaha dhibaatada laxaad kale ay ka taagan tahay 14 magaalo la gaarsiinaya lacag iyo biyo taasoo soconaysa muddo 2 bilood Faarax Aadan oo ka socda hay'adda adre ayaa sheegay in 1260 qoys ay deeqdaasi ay ka faa'iideysan doonaan ayna heli doonaan 9300 oo foosto oo biyo halka 667 kamid ah dadkaasina ay qaadan doonaan lacag muddo 2 bilood waxaa halkaasi looga mahadceliyay hay'adda adre. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ballan qaaday in wax laga qaban doono ceelasha fadhiya ee ku yaala gobolka Sool. gooreen halkaasi waxaa ka hadlay isuduwaha biyaha ee gobolka Sool. ceelasha wax badan bay ka qabatay haddana ay wada waana hay'adaha degan gobolka Saatriis hay'aduhuna hay'adaha ugu soo jirtaan si waa naga dadaalayna asra ilaali in aad kor u qaadaan intaana aad ka sibadsan waanu doonaynaa ka wasaaradahan ka adre ahaan anagu hadeer waxyaalaha aanu hadeer inta abaartani ay xoogeysatay labada bilahan ugu dambeeyay aanu kulli doonaynay inaanu wax ka qabanno ee ugu daranay hadda aan meeshan u mareynay hadda weeye nidaam biyo la qaybinayo oo aan doonaynay inaanu qaybino oo 2 bilood soconaya March iyo April bal doonayay inay socdaan 60 maalmood inay socdaan biyahaas waxa loogu talagalay 680 qoys 684 qoys dhamaantoodna waa la select gareeyay oo de waa la soo qoray meelihii markaa aanu isnidhi ama guddiga abaaraha ama maamulku ay nagula taliyeen ugu daraabaanu qaadanay. Karbaldaaley waa ka mid axadaan doonaynaa markaa inay u bilaabato biyaha dadka waraabin doona waa biyaha nadiifta ah ee si xawle riiga ee macaanka ah sida macaanka loo isticmaalayo maadaama kuwii ceelasha caadiga ahaa la yiri ma garanaysaa waxa looga baqay in kaloorin iyo waxaas ay kaloore iyo wax ka dilaacaan taas waa xagga biyaha 667 qoysna waxa la gaarsiinayaa lacag baa iyaguna la gaarsiinayaa $50 bishii oo ka bilaabata March kuna dhamaanata April. dadka maxay ahayd tooy wax garadka cuqaasha maxay ahayd tooy wasiirka biyaha maxay ahayd tooy wixii maxay ahayd tooy in inayar waanu salaamaynaa waayo de wixii aan bafayna waxay farniintayna way ordayaan khayr baanu rajaynaa xaleena ifka fiicnaa aakhirna fiicnaa dadkani way farabadan yihiin adigu ilaa 500 qoys ay ka koobayeen hadda meesha dadka ka xasaskana lagu kala jirtaa inta qura maaha xasaskana lagu kala jirtaa inta kaliya maaha ilaa adu 500 meelahaas qiyaasta way yihiin aad baan uga dayacanahay biyuhuna alxamdulilaahi rabbil caalamiin biyaha hadaan la haysan waa la baqtiyaa waxaanu kaliya u baahanay caruuri baa naga shumay biyahan in laga bedelo biyo wanaagsan oo saxare naloo keeno waxa weeye reeraha qoysas baan dab shidan oo baahi meesha la liita waxa weeye waxaanu doonaynaa in baahidana laga biyo ilaahay baa naga biin kare walaalaha iyaga in dhahay noo sakhiro la far badan oo iyaguna laga shaqeeyay hadaan suqnada xagga hay'adaha hay'adan adra shaqooyin fara badan bay gobolka haysta ka qabatay haday taayl ay kicisay iyo ay dhooba qaaday iyo wadooyin ay furtaba oo biyaha loo mari jiray hadeerna sida lagu sheegay 660 iyo 680 qoys dad ku dhow la siinaya biyo la siinaya afcabaalka ilaahayna waxaan ka barinayaa iyada mas'uuliyiinta gobolka inay ilaahay ka jaasiyo midna wasiir waxaan ka codsanaa adigana bal in aad noo dirdirgelisaan halkan waa Karbaldaaley weeye dadka isugu soo ururay halkan Karbaldaaley wadadka xoolahooda ka dhamaadeen waxna ay wixii u horeyna xagga uga xeero xagga bariga ay tageen waxaan kolleeyay sidaan hore ogeyn horena la soconay dadku sidaas ay abaartu u saameysay oo ay xoolahooda uga soo urureen waa si kala dadaran yihiin gobolka Sool hadda oo aanu laba habeen ku sugnayn
waxa weeyaan dee wararka naga soo gaadhay kolley waa wararkaanu haynay waana warar aad maqanaysaa u naxariis maqanaysaa naxadin leh waxaanu jeclahay kolley waxba anagu haqran mayno ka dowlad ahaan waxaanu xukuumaddu way u taagan tahay sidaa anaguna aanu u soo gaadhnay dhulka meel walba inaanu dee aragno oo wasiiro kale iyo dad kale iyo guddi abaaruna howlgal badan bay iyana ku jiraan waanu aragnay kolley sida ay yihiin waxaan u baxaya kolley Nairobina waanu tegaynaa isniinta oo iyaguna kolley arrimo badan oo noocaas oo kale waanu ka qayb gelaynaa hadda waxba hadalka anigu aan badinayn arkaa dhibaatada iyo waxa meesha ka muuqda booqashayga ahayd meesha dadka indhaha u geysto oo soo arko oo dadkayga adreenkooda iyo say u nool yihiin aan soo indhaindheeyo wixii awoodan aan u geyno. Cabdikariin Olol, Somali News, magaalada Laascaanood.